Dingun wuxuu tirtay dhabankiisa isagoo caddaynaya in Yun uu ahaa bakhtiga loo garaaco oo waa inuu mahadnaqaa in Dingun uusan soo dabagelin. Ma rumaysan karo inuu weli ku dhuftay isagoo aan feejiganayn. Isaga iyo saaxiibadiis waxay bilaabeen inay u soo cararaan wiilkayagii. Yun wuxuu u dhaqaaqay sidii onkod isagoo ka dhuumashada weeraradooda oo ku dhufta iyaga ka hor intaanay wax ka falcelin. Dingun wuxuu jilbaha ku dhacay dhulka wuxuuna bilaabay inuu dhiig ka tufo. Ardaydii waxay bilaabeen inay isla dharsheen. Dingun wuu argagaxay, ma rumaysan karo sidii uu Yun u dheereeyey. Ardaydu way yara wareereen, ma ay ogeyn waxa dhacay. Waxay la yaabeen sidii mar kale si fudud loo soo tuuray iyo haddii Dingun runtii uu daciif yahay. Dingun cadho ayaa ka buursamay, ma rumaysan karo sidii ku dhawaaqaha heerka 5 ee qashinka ah uu si lama filaan ah uga xoogaystay. Isla markiiba wuxuu isticmaalay xirfad la yiraahdo jahannamo taasoo korodhisay weerarkiisa 25%. Wuxuu qaatay dubaha dabka laga sameeyey kaasoo siiyey 314 dhibcood oo weerar ah. Wuxuu u maleeyey in Yun uu nasiib u helay oo isagoo aan hal ilbiriqsi lumin ayuu u soo booday. Wiilkayagii wuxuu si dhaqso ah u dhaqaaqay isagoo ka faa'iidaystay fursaddii oo ku dhuftay daanka. Wuxuu isticmaalayay xirfadda weerarka khiyaanada taasoo korodhisay weerarkiisa 80%. Dingun wuu argagaxay. Wiilkayagii wuxuu ku laaday cag isagoo si xoog ah dhulka ugu burburiyey. Ilaaladii ayaa timid markay arkeen Yun oo ku taagan Dingun waxay weydiiyeen haddii uu jiro daaweeye. Ardaydu way argagaxeen markay arkeen sidii uu Yun u dheereeyey. Waxay xusuusteen inuu yahay heer 5 oo keliya. Xataa gabadhii timo dahabi ahayd iyo saaxiibkeed way argagaxeen. Ilaaladii waxay caddaynaysaa in dagaal laga mamnuuc yahay gudaha hoolka sababtoo ah waxaa jira khatar ah in wax la burburiyo. Kadibna waxay weydiisay macallinkii sababta uusan ardaydiisa xakamayn karin. Macallinku wuxuu bilaabay inuu u soo socdo Yun. Ma uusan caayin oo keliya geesiga, haddana wuxuu dhuftay farcankiisa. Sida uu sheegay, Yun waa ceeb la'aan. Macallinku wuxuu soo saaray seeftiisii, indhihii Yunina waxay ku dhammaadeen isaga. Wiilkayagii wuxuu isticmaalay giraantii, markii macallinku isku dayay inuu weeraro, seeftiisii way burburtay, taasoo qof walba ka tagtay argagax. Yun wuxuu sheegay inay iska dhigaan hadalka cidda ceeb la'aan ah wax yar. Wuxuu tilmaamay macallinka in kastoo uu sheeganayo inuu cadaalad yahay, waxa uu u muuqdaa inuu keliya dhegaystay sheekada Dingun, wuxuuna si toos ah u weydiiyey haddii uu isku dayayo inuu u farxiyo qoyskiisa. Macallinku wuxuu ku yidhi ha hadlin wax aan macno ahayn, kadibna indhihiisa waxay ku dhammaadeen giraanta wiilkayaga. Wuxuu la yaabay nooca qalabka ay tahay, maadaama in kastoo uusan isticmaalin xooggiisa oo dhan ay ku guulaysatay inay ka hortagto weerarkiisa. Iyadoo xoog weyn ka soo baxayo jidhkiisa, Yun wuxuu caddeeyey inay ahayd faalo fudud, wuxuuna ku daray inuusan aaminsanayn in macallinku yahay qof noocaas ah. Ardaydu way argagaxeen, ma rumaysan karin in Yun xataa uu awooday inuu ka hortago weerarka macallinka. Macallinku wuxuu ballan qaaday inuu si fiican u baadhi doono sababta isku dhalka. Qalbigiisa hoose waxa uu la yaabay meesha Yun ka helay qalabkaas iyo haddii isaguna uu leeyahay taageero qarsoodi ah. Giraanta Yun wuxuu xidhay giraanta lafaha jimera taasoo adkaynteedu hore u dhaawacantay 37%. Inkastoo ay ahayd tayo heer sare ah, haddana waxay ahayd qalab laga helay maamulaha heer 21 ah. Marka la isticmaalayo weerarka macallinka heerkiisu yahay 5 waa wax dhaafsi ah. Yun wuxuu weydiiyey in laga saaro hoolka ciqaab ahaan isaga iyo Hiway. Hiway wuu soo istaagay wuxuuna bilaabay inuu raaco wiilkayagii iyadoo wejigiisu wareeran yahay. Ardaydu ma rumaysan karin in Yun awooday inuu ka hortago weerarka macallinka, waxayna la yaabeen haddii tan ay tahay wax arday samayn karo. Macallinku wuxuu ka codsaday ardaydiisa inay xirfad bogsiin ku isticmaalaan Dingun. Intaas la sameeyey, wiilkayagii iyo Hiway waxay ka baxeen hoolka. Yun wuu murugaysan yahay, ma rumaysan karo in ugu dambayn qofna uusan badbaadin oo beenbeen la dilay wakhti hore geesiga la yiraahdo. Indhihiisa waxay ku dhammaadeen Hiway, wuxuuna ku fikiray in hadda wax weydiiyo uu u jawaabi doono isagoon fikirin. Wuu qufacay wuxuuna sheegay in aqoontiisa taariikhdu ayan ahayn mid aad u wanaagsan. Sidaas darteed wuxuu ka codsaday inuu uga sheekeeyo falalka gaarka ah ee geesiga Dingun. Hiway wuu kacsan yahay, wuxuu sheegay in kastoo uusan hubin inuu si sax ah u xusuusto, waxa uu u muuqdaa in geesiga Dingun uu hore u ogaaday shirqoolkii khayaanka weynaa ee Yun. Wuxuu sheegay inuu diyaariyey weerar qarsoodi ah oo u dhow qalcaddii heerkas si uu gargaar u gaarsiiyo, oo sidaas ayaa loo xalliyey dhibaatadii kacdoonka oo dhan. Yun wuu yara yaabay. Wuxuu bilaabay inuu xasuusto noloshiisii hore iyo sidii looga dooday meel dhaca. Hiway wuxuu sharaxay in geesiga Dingun uu yaraantiisii ku hamuun lahaa xalinta dhibaatada qalcadaha oo had iyo jeer si adag u tababaran jiray. Kadib markii uu boqorku dalbaday, waxa uu sannado badan ka dagaalamay dalka oo dhan, isagoo ka badbaadiyey meelo kala duwan dhibaatooyin sida caanka ah masiibadii weynayd ee magaalada Winterfell. Yun wuxuu bilaabay inuu dhulka eego oo uu ka fekero sawirka noloshiisii hore ee isaga oo taagan buurta meydka ah. Iyadoo wejigiisu murugaysan yahay, Yun wuxuu weydiiyey seefta ay hayso taalada geesiga. Hiway wuxuu sharaxay inay tahay seefta daruuraha qulqulaya, wuxuuna ku daray in sida sheekadu sheegto ay tahay seeftii uu geesigu ku dilay khayaankii Yun. Waxay ahayd qalab heer sare ah.
indhihii Yun waxaa ka buuxsamay cadho, ma aysan oo keliya beenin sharaftiisii iyo guulihiisii, waxay xataa qaateen seeftiisii. Markaasuu go'aansaday inuu marka hore dilo Dingun. Bannaanka qoyska Dingun, dhowr askar oo heer sare ah ayaa wareegaya. Si lama filaan ah, indhaha mid ka mid ah ayaa iftiimay, isagoo dareemaya wax. Meel aan fogayn wuxuu arkay Yun iyo Hyo oo galaya shabaq. Wuxuu go'aansaday inuusan wax badan ka fikirin, isagoo u malaynaya inay meesha sii marayaan. Markuu arkay sida askartu feejigan yihiin, Yun waxa uu la yaabay haddii uu yahay socdaal leh xirfad sahan. Hyo wuxuu ku taliyay Yun inay iska baxaan. Wuxuu ku dooday in ilaalo aad u badan yihiin, oo xitaa haddii ay soo galaan, markuu Dingun soo laabto, way dhammaan doonaan. Inkastoo uu doonayay inuu tago oo uu dilo geesiga Dingun, haddana wuu ogaa inaanay suurtagal ahayn. Sida uu Hyo sheegay, Dingun wakhtiisa oo dhan wuxuu ku qaataa qalcad heer sare ah. Si la mid ah noloshiisii hore, hadda si xor ah looma geli karo, mana laga soo bixi karo qalcadaha. Kuwa heerka sare ah waxaa dhowraan ciidamada oo baas gaar ah ayaa loo baahan yahay si loo galo. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu hubaa in qoyska Dingun ay gurigooda ku haystaan baasas noocaas ah. Wiilkayagii wuxuu weydiiyey haddii ay lama huraan tahay inay haystaan ilaalo badan, maadaama ay yihiin mid ka mid ah 10 laamo ka soo farcamay Dingun. Hyo wuxuu daaha ka qaaday in ay yihiin farcanka geesiga iyo inay sidoo kale leeyihiin qalcad gudaha dhulkooda. Indhihii Yun way fureen markuu ogaaday inay gurigooda ku haystaan qalcad. Hyo wuxuu sheegay in qalcadaha heerka hoose muddo dheer si gaar ah loo iibiyey, laakiin tani maaha mid dadka aan awoodda lahayn ay ku riyoon karaan. Dingun had iyo jeer waxaa la socda ilaalo si uu u qalato makhluuqaadka uuna heerar sare u kaco mar kasta oo uu doono. taa beddelkeeda ardayda caadiga ah sida iyaga waxay samayn karaan oo keliya inta lagu jiro tababarka qalcadaha iskuulka, xataa markaasna waxay ku dagaalamaan makhluuqaadka. Yun wuxuu garwaaqsaday in xilligan aad isu beddelay, wuxuuna weydiiyey haddii tani aanay la macno ahayn in qofka hodanka iyo awoodda weyn uu heerkiisu sareeyo. Hyoy wuu iska dhiibay, isagoo daaha ka qaaday in dadka caadiga ah ay ka qalin jabiyaan iskuulka iyagoo u dhexeeya heer 15 ilaa 20. tan iyo markii dad badan aanay mar dambe geli karin qalcadaha, waxay ku dhex qalafsan yihiin heerkaas. Haddii qofku helo shaqo la xiriirta qalcadaha sida macdan qodayaal ama waardiyayaal qalcad qaran, waxa uu gaari karaa heer u dhowaad 3 marka uu gaaro dada dhexe. taa beddelkeeda, ilaalada sida kuwa guriga Dingun waxay ka faa'iidaysan karaan qalcadda qoyskooda, taasoo u oggolaanaysa inay noqdaan kuwa heer ku dhowaad 3. si loo gaaro heerka sarreeya, waxaa guud ahaan loo baahan yahay in ciidamadu soo qoraan ama la galo hay'ado rasmi ah sida ururo ama akadeemiyo ciidan iyada oo loo marayo qiimayn iskuul. marka oo keliya ayaa qofku geli kara qalcadaha heerka sare oo uu gaari karaa heerar sare. wiilkayagii wuxuu ogaa in hadduu doonayo inuu xoog weynaado, uu baaskaasi lama huraan yahay. Hyoy wuxuu soo jeediyey inay iska baxaan, isagoo ku dooday in farqiga heerka uu aad u weyn yahay, oo xataa hadduu yahay mid xirfad leh kuma dheeli karo ilaaladaas. Yun wuu ogaa in xooggiisa hadda uusan ku filnayn inuu dilo geesigaas, dhibkiisana sheeg boqorkii sare ee Lui oo dhowr darbi oo ilaalo ah ku wareegsan yihiin. si kastaba ha ahaatee, wuxuu ogaa in xirfadaha sahanka ee la baran karo heerka u dhowaad 3 ay guud ahaan yihiin xirfado aag yar sida indhaha gorgorka, maqalka la xoojiyey, ama soo kicinta ruuxa dabaylaha. kuwani ma dahaadhaan dhismaha oo dhan 4 saacadood. intaa waxaa dheer, tani maaha qalcad nolol iyo geeri ah, oo badi ilaaladu waa kuwa caajis ah. wuxuu soo gabagabeeyey inay ka filan tahay inuu soo galo. Hyoy wuu baqay. si kastaba ha ahaatee, Yun wuu booday oo wuxuu gaaray derbiga, isagoo ka fikiray in marka la barbar dhigo sahanka quman ee qalcadaha sare ee noloshiisii hore, tani ay aad ugu fududahay. Hyoy wuxuu caddeeyey in xitaa haddii ay soo galaan qalcad gaar ah oo sidan oo kale ah, waxaa lagu dili karaa iyada oo aan wax ciqaab ah la soo gaarin. wiilkayagii wuxuu qabtay shaadhka Hyo, wuxuuna weydiiyey haddii uusan doonayn inuu beddelo noloshiisa. Hyoy wuu qirtay inuu doonayo, laakiin wuxuu qorshaynayay inuu sameeyo kadib markuu galo urur. Yun ayaa markaa weydiiyey haddii runtii uu aaminsan yahay in ururku wax u beddeli karo. Hyoy oo ah farcankii khayaanka xin, indhihii Hyo waxaa ka buuxsamay murugo. wiilkayagii wuxuu soo jiiday derbiga, wuxuuna caddeeyey in qadarka qofka la beddeli karo oo keliya wakhtiga hadda, ma ahan in la isku halayo wax suurtogal ah oo xataa isaga laftiisa uusan hubin. Yun ma ahan mid iska dhaafi kara qalcadda hortiisa taal. wuxuu go'aansaday inuu u daayo inuu isagu go'aansado hadduu doonayo inuu raaco. Hyoy wuu dhididay. wiilkayagii wuu ka fekeray haddii farcanku uu samayn doono doorasho la mid ah tan awowgiis. Hyoy wuu istaagay, ma uusan u oggolaan karin inuu u dhimasho tago. Yun wuxuu ku yidhi ha samayn wax sanqadh ah, isagoo sharxaya in aanay jirin wax raad ah oo xirfad sahan nooc wac ah aagan ah. sidaas awgeed, inta ay codkooda hoos u dhigaan ka dhumashada aragtidooda oo ay qabtaan wakhtiga saxda ah, way si fudud soo geli karaan. Yun wuxuu qabtay Hyoy, iyadoo la socota qorshihiisa waxay ku guulaysteen inay soo galaan dhismaha qoyska Dingun. indhihii Hyoy waxay ku dhammaadeen qalcad hoosta ka furmay. waxay galeen qalcaddii, waxayna arkeen 2 makhluuq, mid heer 6 ah iyo mid heer 8 ah. wiilkayagii wuxuu xusay in heerka uu yara ka sarreeyo qalcaddii hore, laakiin tirada makhluuqaadka ma ahan mid sare, malaha sababtoo ah qoyska Dingun waxay si joogto ah u dilaan. wiilkayagii wuxuu sheegay inay jiraan 2 makhluuq oo yar, wuxuuna ku yidhi Hyoy inuu tago oo isku dayo. Hyoy ma rumaysan karo, wuuna diiday, isagoo sheegay inaanay jirin wax uu ku adkaan karo. wiilkayagii wuxuu ku qasbay inuu dagaalamo.
makhluuqaadkii way weerareen wuxuuna soo saaray gaashaankiisii si uu isu difaaco. Asxaabta, halkan ayay xalqadeeni ku eeg tahay, waxaana idinka mahad celinaya sida quruxda badan ee aad 3,000 nagu gaadhsiisan, waxaana aan rajaynaya in aad 4,000 waqtiga ugu dhow nagu gaadhsiisaan insha Allah. waa inoo iyo xalqada 4aad.